حسن يا حسين بو مال العياري مركزي نرير باديه نبي يقول مدو عربي او يري عيالك هذا ما دكتا ها حاولوا كواي وقبدكيغي والله انه تبن ويل بان دلو ولي منا كما دنكن بو يدي markaa buu nabigu leeyahay maxaan ku sameeyaa hadii ilaahay qalbigaaga naxariista ka siibay man la yarham la yurham kan naxariisan looma naxariista buu rasuulku hadaad ilmahaaga u naxariisan weyday adna ilaahay ku naxariisan maayo meesha naxariista laga soo bilaabaana waa aqalka meesha dhaqanka wanaagsan la tusaa ee in la tuso u xaqlana waa reerkaaga ugu أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وإن خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي برسولكم كوين إنيغو إيمانك في عن إنيغو إيمانك كامل كلا إيمانك دما يسترمي بالنبي يري وأكو دبعة ونكسن برسولكم ما أورا النبي وأكو صلاة ونكسن ما أورا وأكو صوك بدل ما أورا وأكو أقونت بدل ما أورن واقوى وعدك بدل وحاو النبي يري كوين إنيقو إيمانك كامل كلا إيمانك قدام ما يسترمي واقوى إنيقو ضبيعة وناكسن وحاكلو إنيقو خير بدن بو النبي يري رجل ريروه خير بدن أنا ريرك خير بدن ورسولك يري إن الخير لا دهي أخلاق وناكسن لا دهي دلقات بدن لا دهي نحريس لا دهي دبرين لا دهي عدة رئيسة كمرخاتك عيسى وين نقدر ريركا أفرت قضية المسكين في هذا برتين إن الضبيعة وانا كوش شاقان وصورة قل لكن إسلام تصدق سنة الله نولي إن ترى منك يقوى ولي إلهي وأن الضبيعة وانا أكسن حق يجيء إلى لي حق أمت كان إلى لي حق جارك إلى لي حق قرابة إلى لي ما سهلا لكن جماعة المسكين قاعد يسكت تقانام إن يكوكو شيغان نكاس وان عبادة بدن وان السنين دي خميس تصومة وان المسكين كان نوغا سو هريا وان المساكين تسيا وان امدو اي كان نبد غش اني كويرادان way fududahay waayo iyaka maalinta saacad baad wada joogtaan laakiin iyaku yaqaan dabeecadaada dhabta islaanta sodonka sano aqalka aad ku wada nooleydeen taas dabeecadaada dhulka taqaan jawsada ma hande nin sheekh bari qisam looga sheekeeyay wuxuu yiri nin caalima oo ardaydu aad u jeclaayeen xirta aad u jeclay iska xirta mujtamac oo dhan aad u jeclaa akhlaaq wanaagsan buu ilaahay siiyay taqwad baa ilaahay siiyay cilmi baa ilaahay siiyay alla ka cabsi baa ilaahay siiyay laakiin ninka wuxuu ilaahay ku hagaajiyay islaam kulul oo dabeecad adag oo markuu inta uu magaalada socdana kabihiisa inuu qaato looma ogolo masalladu ku tukanay inuu qaato looma ogolo aqalka markuu galana islaanta ku shaqaysata darigu karin biyuhu dhaamin dabku shidi iyada dhanbu cuntada siisiin markaas ay oranaysaa magaaladu sheekh bay ku haysataaye aniga arteeda shaydaan baa tahay ii khidmay bay oran hadalka keeni maayo uu khidmayno uu khidmaya una ma hadlo ma sheekayo awal aqalka gudihiisay ku dirdiran jirtay baa leeyay markii dambe waxay ku tiri anu hadee toolo waan daale xaabada ii soo guro biyahana ceelka iga soo dhaamay ceelka ninka sheekhana waa ninka magaaladu kabihiisa inuu qaato uma ogolo jacaylo iyo ixtiraam ay u qabaan markaasuu yiri ilaahow astur ilaa hadii la ogaado sheekhu xaabo guraaya oo biyihiina dhaaminaya dadku waxay oranayaan war sheekha aqalka dib baa ku haysatay in kar qabtadan waa maxay sheekha dirata wala habaarka ku dhici taabo marka uga baqayaayo wuxuu yiri ilaahow miskiinta aadi xaaska aadiga dhigtay umul ciyaalka ilaahow ha igu hoojina maanta igu astur magaaladii buu ka baxay ardaydii uu muraad yar baan leeyahay iska hadal muraad marka xaabadii buu soo guray dhul cilmi u tagay xaabadii buu soo guray meel buu ku uriyay biyihii buu dhaamiyay ilaahow aniga islaantaas ilaahow islaantaay umada kale ilaaliyo libaax socdo un baa u yimid hor fadhiistay leeyahay sheekh xaabadii qurihii buu saaray libaaxii biyihina dhinaca kale ka soo saaray magaaladii wala soo maray sheekhu libaax wata
markaasaa la yidhi awalba inuu mu'min ilaahay ku xidhan oo karaamo le waan ogeyn inuu ahaaye maantayba karaamadiisii daahirtaa la yidhi albaabkii buu hor dhigay islaantii meel bay ka qaawisto libaax bay aragtay alaabta usoo sida ilaahu inuu soo gelin libaaxaas ilaahu libaaxa igu soo gelin dibadiibu markaa libaaxii joojistay halkii buu kaga dhaadhiciyay xaabadii biyihii libaaxii uu iska socday isagaa markaa xaabadii aqalka soo geliyey biyihii buu soo geliyey markaa bay ku tidhi dameerka foosha xunne maanta soo rarteen ayaa kugu caawiyey ka tiri nabiga ku salliya ina kayda kuna cadiim ilaahay baa sheegay soo maa hadda way arkaysaa indhahayga ilaahay inuu u gargaaray ninkaas maca daalika haddana ma sadaqayso waxay ku leedahay war dameer fool xumaad wata maanta xagga ka keentay oo iska aamusay markaa muddo yar kadib islaantii baa ka dhimatay sheekhi maadaama islaantii ka dhimatay iyadoo aanan la ogaan dhibta isaga ay ku hayso dadkii magaaladii baa isku tegay waxaa la war sheekha gabadh wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo xaaskiisii hore kaloo lamida waa in loo doondoonaa gabadh wanaagsan baa loo keenay oo sheekha qadarkiisa garanaysa daadna ma aragtaanay markaasaa haye aqalkii baa loogu hooyey dee waxay tidhi way og tahay sheekhu inuu libaax soo raran jiray ma og tahay iyadna waxay leedahay sheekhu libaaxiyo wuxuu soo rari doonaa iyo ma aragtaanay libaaxii baa biyaha iyo xaabada kuu keeni doona dee markaa baa tir sheekh xaabadii iyo biyihii way naga dhammaadeene markaasuu dhib male iska fadhi insha allah ilaahay baa noo keeni dooneen dhulkii buu tegay libaaxii ma iman dee markaas isagii baa markaa ay noqotay inuu xaabadiina soo guro biyihiina soo qaado markaasuu magaaladii la soo dhex maray waran inkaar qabtada sheekha aan u dhisnay ee sheekha rartay maxay ahayd oo sheekh libaaxiina mee baa lagu yidhi wuxuu yidhi libaaxii islaantii hore iska lahayd nabiga ku salliya akhlaaqda allah hayna siiyay innaka yacni qisadaasi waxaan u soo qaatay haddii akhlaaq wanaagsan aada leedahay dadka ugu xaqle inay arkaan waa dadkay waa dadka guriga jooga caaisha radia allahu canha baa nabiga la weydiiyo o lagu yidhi nebiga akhlaaqdiisa ka warran baa lagu yidhi aqalka markuu joogo siduu ahaa marada ka googo'day buu nebigu karkaran jiray tidhi kabta ka go'dana isagaa gacantiisa ku tolani jiray neefkiisana isagaa maalan jiray annakana aqalka dhexdeeda adeeg waxaan u baahanay buu noo qaban jiray tidhi laakiin salaaddu hadday gaadhay tidhi caaisha nebigu salaad buu usoo bixi jiray bay tidhi ninkee baa maanta odhanaya intuu xaaskiisa ku yidhahda iyo hablihiisa aabba bal maanta nasta anaa dhariga inii karana mu jira aniga maanta dhari karinta igu daaya ma dhici karto waxaaban u aragnaaba ihaano inay tahayba inuu ninku reerkiisa u khidmeeyaa uu xaaskiisa u khidmeeyaa uu ubadkiisa u khidmeeyaa uu noqdaa nin adeegayo akhlaaq wanaagsan waxaan u aragnaaba nin doqon oo islaamtu ay ka adag tahay inuu yahay khuluq akhlaaqda nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofkii ugu horreeyey ka markhaati kacay akhlaaq wanaagiisa waxay ahayn xaasaskii rasuulkeena u naxariis badnaa u dhibrin badnaa marka qiyamka wanaagsan buu nabigu mujtamaca la dhex marayay mujtamaca reer madiina wala fiirso inan dhalinyara ka kacay masjidka dhexdeeda gacantuu taagay yaa rasuul allah ani zinada ha lay fasaxa buuri ma dayn karaye inna lillahi war maxaa markaa buu nabigu ii daayay soo dhawow kale walaalama kula dhasheen haa way la dhasheen gabdha walaalahay way la dhasheen gabdhaha walaalaha ayaa kula dhashay in xumaanta lagu sameeyo ma ka raalli tahay markaasuu may waa ku dul dhiman buu yidhi habaryar ma leedahay haa waan leehay habaryaraha in waxaa loola taga ma jecesha aad doonaysa inaan kuu fasaxo may waan ku dhiman buu yidhi dhimashaan ka aqaana markaa aad tidhi ii fasax zinada kaba soo qaad haddii zinadii laguu fasaxo ta aad ka zinaysan raggaa halkaa fadhiya unbay ama walaal ugu toosan tahay ama eeddo ugu toosan tahay ama habaryar ugu toosan tahay sida adiguba haweenkaaga aad xumaantaa raalli aad ugala ahayn ayakuna xaasaskoodii iyo dumar iyo hablahooga iyo qaraabadooda gabdhaha qaraabadooda in xumaantaa loola taga iyakuna raalli kalama abuu ku yidhi rasuulku markaa yaa rasuulla haddaba ii ducee markaa buu nabigu yihi soo dhawow halkaa buu nabigu gacanta u saaray laabtiisa ilaahu qalbigiisa xumaantaa uu ku haminayo ka masax farjigiisana ilaali
ذنبي سنة الله الضعف ورسولك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أعرابي نير بادية أي مساجد كدنا عبد ما توستاقو كاديسي مسجد كعورات طول صوب حيبكو كاديي مركب صحابته كويا عين مركب النبي يقول دعوه دافع النبي يقول دايا النبي يقول كادي حكو كلا بوينينه ماشو كو كاديي بيكبر كوشو النبي يقول إسقنا يقول يا رسولكم إن أعرابي ورير بادية ومقالة مدينة كعصب ولعل الله جايبه إنه ويمد دين الإسلام كأنه برتو وحشود ولي أنا قلبي جيس حشود كقليل إيمانك ولي قلبي جيس وسن قليل دين الإسلام كولي أنا وحبك الجرنين ومسجد النبي محمد عورتي سكول الصدح بحي كادنا كنت اللي جي مسجد كده حديدا أيو النبي والصحابة كلها ضافوا دايا السجن أنا جاي يقول يادا ماشي كوك هذين بيكبر كشبة مركب النبي كويدا عليه الصلاة والسلام ألقوا مساجد ويان وأمي الله قلت لك لي إن الله اللي عبد كليه بس أمي ظاهرة صلاة الله قلت كذا قرآن قال الله قلت حخرستا إلهي ما الله قلت حصوصتا إيه كنا وحو كو أمري هل كي وكو كادي بيكبر كشبة إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين بالنبي يقولي أمة ديديي أصحاب تيديي وحا إلهي أدوية وإني كاني إن هذا مدى حق أرد برسانة إن هذا مدى حق كؤت كيسان إلهي أدوية إني كاني برسولك يقولي بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا بشروا ورمضى خيرك وبشارية أبو النبي يقول يا حي ولا تنفروا ومدى خيرك هكفر حننا ومدى النحريس إلهي هكقوسن ومدى انفرار هكردن ومدى خيرك وبشارية وحاتر على خير بينو سو سعدا زمن كان وزمن كإسلام قصون ولا نايي وزمن كالصحوات الإسلامي قو أي سعوني سي قف دين لا لدونيا قف دين يقانا لو باهي هاي قف ضنمالي أيا إيمان دونين تلاد ومدى اللو ديبتو عيد والبا ومدى هقان وقباني مايو ومدى نوحي قائد كدغاني دونتا أمد إذا تقانو قيمة له وإلهي رسولك ستقانا بشاري ومدى خيرك وبشاري وعادر هذا خير بين نوص وسعودا حنون كان لشيء يو ما إلهي بان هاي سنة دعاء إلهي نو أقبل يا صدقة بحينا إلهي نقاق قاضي يا ضعفاء مساكين بان هاي إلهي نضيع مايو ومدى خيرك الله بشاري يا ومدى وح كنحيا لو مشهق ومدى رسولك